maxaad kala socotaa gadoodka adkooban ee taageerayaasha kooxda K-pop-ka ee EXO iyo cadhada ay u qabaan gebi ahaanba shirkadooda SM Entertainment? Ma dhabaase inay ka been abuurtay shirkadaasi Kai iyo bixitaankiisa adeega militariga? Waa tuma fanaanada Mareykanka ee u ilmaysay misana jacaylka u muujisay J-Hope iyadoo sheegtay sida ay uga xun tahay bixitaankiisa 2 sano. hambaliyada jaraa'idka fog ee Jimin oo aad uga farxisay taageerayaasha faraha badan ee BTS Army xilli ay u doorteen well dressed iyo waliba Selena Gomez oo si weyn uga hadashay isla xiddigan waqti ay ku sharaxday eraya ay ka mid yihiin Sweetest Soul iyo nafta ugu qiimaha sarreysa amaba ugu wanaagsan. Praised Jimin for his appreciation from Vogue with Selena Gomez. Selena commented underneath a TikTok about that. Intaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta oo balse ka hor inta aynan u dhexgelin si weyn sheekada oo dhan waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo sida quruxda badan aad ula falgashaan mar kasta muuqaaladeenna idinkoo la garaynaya subscribe ayuu ku soo biiraya YouTube-ka iyo channelkeena Baldab TV. Ana waxaan idin leeyahay waan idin ogahay midaasi mahadsan idin saaxiibayaal. taageerayaasha faraha badan ee kooxda fanaaniinta K-pop-ka ee EXO ayaa si weyn uga gadooday qoraal ay soo saartay shirkadda SM Entertainment ee iska leh tiimkaasi EXO. qoraalkan ayaa u muuqday been abuur cad oo ay samaysay shirkaddu. hadalka ayaana u dhignaa in dib loo dhigay bixitaanka adeega militariga fanaankooda la magac baxay Kai oo la filayay inuu baxo si dhaqso leh. waxaanay tilmaameen in isbeddel ku yimid dhankii shuruucaha adeega militariga sidoo kale dib loo dhigay bixitaanka fanaankaasi Kai. arrintan ayay si weyn uga farxeen taageerayaashu oo balse ugu dambeyn waxay ogaadeen shirkaddu inay sheegtay gebi ahaanba been cad wax dib u dhigina aanay jirin. bixitaanka fanaankuna gebi ahaanba ku egyahay 11 bishan socotee May. arrintan ayay ku tilmaameen taageerayaasha kooxdu qeyral mas'uulnimo ee ictiraam darro loo geysanayo faniska iyo fanaanka labadaba. Kai ayaa laftiisu kaga jawaabay arrinkan qaab murugo leh misana ay ka muuqato niyad jab isaga oo yidhi runtii ma filayn bixitaankan degdega waxaanu arkayay in dib loo dhigay sidii ay shirkaddu nagu wargelisay hadda ka hor. ma aqaan sidaan ugu diyaar garoobi doono sida dhaqsaha leh waxay ahayd in mar hore lay sheego waxaanse ku qasbanahay inaan baxo ugu dambeyn xilliga cayimana lagu talagalay si aan gebi ahaanba u soo gudbo waajibaadkaasi dalkayga. taageerayaasha ayaa ka walwalsay in xataa fanaankani aanu soo noqon doonin sidaana uu kaga tago shirkadda maadaama ay u muujisay ictiraam darro ballaadhan sidoo kalena wakhtigiisii uu ku diyaar garoobi lahaa gebi ahaanba ay kaga dheeshay. haddaba daawade ma odhan karnaa shirkaddu waxay samaysay qalad ballaadhan oo gebi ahaanba aan ku habboonayn fanaanka iyo sidoo kale gebi ahaanba faniska tirada badan, mise waxaad u aragtaa shirkaddu inay xaq u leedahay wixii ay samaysaba sidoo kalena go'aamin karto hadba wixii ay soo bandhigayso? Suddenly announced that EXO's Kai would have to enlist much earlier than he thought. SM Entertainment, Kai's agent... dhanka kale fanaanadu dhalatay waddanka Mareykanka oo lagu magacaabo Halsey ayaa u ilmaysay bixista adeega militariga fanaanka kooxdaasi BTS ee lagu magacaabo J-Hope. arrintan ayaa keentay in taageerayaasha dhagaha dhaadheeri si weyn uga fiirsadaan misena uga fakaraan gebi ahaanba waxaa ka dhexeeya Halsey iyo ninka lagu magacaabo J-Hope. sababta aanay uga hadlin bixitaanka fanaaniinta kale oo dhan oo balse keliya waqtigii J-Hope u soo dhigtay barteeda Twitter-ka weedhahan qirada leh kuwaas oo u dhigan sidan I literally cannot take this. runtii middan ima fududaan doonto waa murugo inteeda leeg indhahayguma joojin doonaan oohinta balse waxaan ku soo dirayaa jacaylkayga oo dhan waxaanan rajaynayaa inaan dib u kulmi doono sida ugu dhaqsaha badan. arrinkani waa midda gebi ahaanba keentay shakiga iyo in taageerayaashu si weyn uga fiirsadaan. Enlistment video, and she said, I literally cannot take this. It's so sad. I send you my love, and I know I will see you soon.
hadalkaas qiirada leh kadib ayaa waxay dib u soo saageereen taageerayaasha iyo faniska kooxdaasi BTS halsi inay tahay qofka ugu dhow mar kasta oo kooxda BTS ayna u muujiso taageero saayida xubnaha kooxda oo dhan khaasatan J-Hope oo ay mar kasta isku dhow yihiin kana dhexeeyo isfahan iyo kaftan ballaadhan waxaa jirtay hadda ka hor xilli interview laga qaadayay kooxda BTS iyo waraysi ay u dhammaystirnaayeen si la mid ah waxaa goobta kula sugnayd halsi waxaa qosol lahaa in la weydiiyey iyada oo qofka ay ugu xiisaysa kooxda BTS iyo sidoo kale sababta ay u taageerto kooxda oo dhan waxayse hadalkii ku soo koobtay waa dad fani ah oo mar kasta iga qosliya halka ay ku celcelisay ereyga I want it oo ah waan doonayaa ereygaasi markii uu ka soo yeedhay waan doonayaa ayaa dadka oo dhan qosleen sidoo kalena fanaaniintii ku sugnaa goobta BTS gabi ahaanba qosolka jabsadeen balse RM ayaa isagoo ka xaraabaysanaya ku soo celceliyay ereygii maxaad doonaysaa we want it I want it you want it oo ah waan doonaysaa waan doonaynaa waynay doonaysaa balaayo ku doontay taloma waxay doonaysaa J-Hope mise kooxda oo dhan Lots of jokes. I want it. I want it. We want it. Yeah. waxaa shaki keentay isla ereygii I want it waxaa markaa kadib halhays ka dhigtay J-Hope oo u isticmaalay show kasta inuu gabi ahaanba ka dhex yidhaahdo heer u gaadhay isla ereygaasi gabi ahaanba inay taageerayaashu ka daba qaataan iyagoo leh we want it waan doonaynaa waxaanan odhan karnaa waxaa xooganaatay markaasi kadib cilaaqada iyo isdhexgalka halsi iyo kooxda BTS gaar ahaan ninka la yidhaahdo J-Hope xataa waxaa jirtay mar ay u qaybisay kooxda oo dhan hadiyada khaasa oo ay ugu tala gashay taasoo ah gacmo dahaba iyo silsilada yaryar oo ay u xidhay waana sababta mar kasta BTS iyo halsi ay u yihiin qaar isku maran amaba leh saaxiibtinimo qurux badan oo aad u ballaadhan oo ay la heestaa way la xidhiidhaa waxay la samaysaa tareerino iyo dancing kala duwan balse haddana saas ay tahay iyada iyo J-Hope waxaa jira dad badan oo ilaa hadda aaminsan inay wax gaari ka dhexeeyaan waxayna ku sababeeyeen kadib bixitaankiisa sababta ay u soo dhigtay page-keeda qoraalkani murugada badan midaas oo kaliya u khaasa bixitaanka J-Hope adigu daawade maxaad ku tilmaami lahayd midan saaxiibtinimo mise arrimo kale oo ka qota dheer dhanka kale jaraa'idka iyo magasiinka Vogue ee caanka ku ah arrimaha xayeysiiska iyo fashanka ee dalkaasi Mareykanka ayaa u doortay Jimin Best Dressed ama qofkii ugu labiska fiicnaa shirkadahan iyo qiimeyn gabi ahaanba dadkii xayeysiiska u sameeyey iyagoo ku tilmaamay inuu mar walba yahay kan ugu horeeya dhanka styleka suudka iyo labisyada fashionka ay soo bandhigeen waxaana ku guuleystay Best Dressed ama Well Dressed Man Style and Elegance oo ah kan ugu sarreeya dhanka qiimeynta labiska iyo bandhiga labadaba Viral comment which said Jimin is always the best dressed. He represents style and elegance with a modern twist. We note how waxaase markaasi kadib bogaadisay misana hambaliyaysay Barky Jimin fanaanada aadka looga jecel yahay waddanka Mareykanka ee lagu magacaabo Selena Gomez iyadoo barteeda Twitterka soo gelisay qoraal ay Jimin uga hadlayso misana kaga falcelisay qoraalkii shirkadda iyo magasiinka ee Vogue ee ahaa inuu ku guuleystay qofka ugu sarreeya dhanka styleka hablabiska waxaanay kaga falcelisay qoraalkan iyadoo leh he deserves everything and more wuxuu u qalmayay intaas iyo weliba ka badan waana bashar qiimo leh iyo qof aad u wanaagsan Barky Jimin absolutely sweetest soul Selena iyo kooxda BTS ayaa leh saaxiibtinimo iyo isdhexgal fiican ilaa iyo muddo dheer waxaanaad arki kartaa mar waraysi laga qaaday BTS oo la su'aalayo waa kuma fanaanka Ameerikaanka ee aad jeclaan lahaydeen inaad la kulantaan maanta ama aad ugu xiiso qabtaan waxaanay dhammaantood si isku mid ah u doorteen inay la kulmi lahaayeen amaba jeclaan lahaayeen inay arkaan maanta
taageero weyna u hayaan gabadha la yidhaahdo Selena Gomez. Alex, Selena Gomez. Oh, Selena Gomez. Yeah. What artists are you intaas ayaan ku saafmeeri doonaa barnaamijkeena maanta iyo xogo ku saabsan qaar ka mid ah xidigaha fanaaniinta K-popka iyo kooxaha BTS iyo EXO. hoos ugu dhaaf fikirkaaga iyo aragtidaada sidaad u aragtay sheekada Halsey iyo J-Hope ma ku tilmaami karaa sheeko xidhiidh mise arrimo saaxiibtinimo oo aad u balladhay. si la mid ah waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena xiga sababta lagu haysto qaar ka mid ah heesaha ku jira albamka Jimin ee Face lacagta dulsaarka ee la dul saaray tigidhada taasoo ay ka mudaharaadeen taageerayaasha xamaasada badan ee BTS Army xilli ay gelisay gabi ahaanba trendiga dhanka iyo Twitterka. balse sidoo kale ma odhan karnaa Jimin iyo shirkadda Big Hit waxaa ka dhexeeya xaasidnimo kooban oo ay kula kacaysa shirkadaasi gabi ahaanba si aanu isu muujin si shaqsi ah. fikirkaaga aragtidaada ee gabi ahaanba wixii tala igu dhaaf qaybaha hoose ee comment sectionka. ha ilaawin inaad like garaysa videoga, subscribe channelka haddii aad ku cusub tahay si aad ula socoto muuqaaladeena dambe. mahadsanid.